gabadhaani waxa soo raacay eedii aabaheeda kadib ay arkaysa hooyadeeda oo ninka la fadhiyo dibna waxa ku dhaysaa aab hooyo fiiri balse si waxa ku dhaay maan hooyada way maqan tahay waliban waxa ku maqan tahay shaqada balse gabadha waxa ku adkaysanaysa qoftaas inay tahay hooyadeed arifka amar fiirina wuxuu arkay qoftaas inay tahay baxaaskiis dibna ayada soo fiirinaysa si gabadhiisa ay ka dhuumanayaan markaas ariftan wuxuu weydiinaya qofta uu dhahay maxaa kugu dhaay eedan waxa ku dhaysaa xabaygu ma dhicin baa caadi sidoo kale waxa uu sheegaysa laakiin gadaasheedina waxyaabo kale ay ka dareentay waxa dhaysaa waa xaski qiyaali aniga kaliya aan sawiranay kadibna waxa sii wadanayaan hooshooda buu helo uu masiirsan uu leebay qoftan waxa ay sameynayso daal fiirina dibna gabadhiisa wuxuu ku dhahay bax la soo ayr asxaabtaada xar kadib aan ku iimaan doonaa gabadhan waxa ku dhaysaa hay aabay wanaagsi tagaysa tan waa qasad qafiif oo isaga maahan masiiro balse qofku uu jecel marba uu maseera wuxuuna sheegay markaan inay tahay markuu ugu horeysa uu maseero wuxuuna maseeray xaaskiisa waliba iyadoo dareensiinaysa markaasi ayaa wuxuu bilaabay inuu waayada si uu ogaado falcelinteeda waana wacaya balse iyadoo hooshada iska wada markay maqasho dhicis telefoonka ay fiirinaysa wuxuu ogaanaysa inuu yahay ninkeeda ifkan kale ay ku codsanaysa telefoonka inuu ku soo hadasho kadibna uu soo laabo signa uu soo fasaxay kadibna bilaabay telefoonka inay ku hadasho dhahdan sidee tahay baby balse isagu wuxuu ku dhahay xagee joogtaa waxa ku dhaysaa xagee kala jooga waxaan joogaa meesha salonka waxa kale oo raacsiinaysa waan ku sheegnay meeshaas aadayo markaas ay wuxuu ku dhahay Lili waxa rabaa inaan ku imaado kadibna aniga ku soo qaado kuna keen xaafad sidoo kale wuxuu ku dhahay gabadh waxay jirtaa iskuul markaas ay ku dhahaysaa hol badan ay taal xaafad aan kulmayna isagu wuxuu ku jawaabay kaliya hay sababta uu jabsan yahay miskiinkan dibna Lili ay waxa bilaabaysaa inay soo laabato xaafadkeeda cusub markaas ay ku dhahaysaa igaraan la qaxay soo aadanka shaqada isagu wuxuu ku dhahay dhibaato malan kadib ayada waxa bilaabaysaa inay looga saarto una soo dhawaato walibana ayadoo dhahaysaa hoosh xagee inoo maraysa qafiifuna markaan uu masiirsan yahay uu xanaaqsan yahay say qafiif uu arkay xariifkan uu baashalsinaya caruur kirta isla markiiba soo dhacaysa uu soo carray wuxuu soo aaday ninka xaqiisa markaas uu qafiif wuxuu bilaabay ninkiina uu waco warsidiisa wuxuu soo bixinay lacag gaaraysa ilaa $500 wuxuuna ku dhahay ma gadan kartaa dharkan taadiga hadda aawado ninkan wuxuu ku dhahay haywanka gadanaya dib ayuu qafiif wuxuu bilaabay ninkiina uu ka qaato dharka oo gashanaya sidoo kale waa uu soo baxaya wuxuu soo aaday labadooda oo shiminaya xaqooda iyaga waqti qaadanaya soo kor istaagaya wuxuu keenay buufinkan kaas uu ku dhahay marabtii inaad la ciyaartan aniga kaas ay Lili waxay dhis anagu waxaan maxaysanay inaga daa marka la uu celinay waxaan ku dhaysaa marab su'aasha laga jawaabo kaliya jacayl waxaan ku sidaysaa aniga kaliya ma naga tagay kartaa si xarifka ku dhahay maxaa kugu dhacay isdeji xarifka soo bood wuxuu dhahay su'aasha hartu aan weydiin kartaa waa kaas uu ku dhahay su'aasha ku tan weydiinayo waxa tahay gacalsada adiga ma shaqeyso markaas wuxuu ku dhaysaa aniga waan shaqeeyaa mar waliba wuxuu sheegay ayada inay ka shaqeyso bangi wuxuu kale uu sheegay saddex san labadooda inay isla socdaan sidoo kale wuxuu sheegay marmar oo kaliya inay is arkaan kaas gabadha ku dhahay saxmiya ayada wuxuu ku dhaysaa waa sax qafiifo masiiro wuxuu sameeyay hal buufin ay bujinay waxaan soo dhacaysaa lacag markaas ninku bilaabay inuu lacag soo qabsado wuxuu ku dhahay hambalyo wuxuu ku dhahay waxaad guuleystay su'aasha horeysan ka weydiiyay gacalsada kaas isaga wuxuu ku dhahay martii aan ciyaarta gameka ayada wuxuu ku dhaysaa waa ciyaar waxaan ku dhaysaa maxay su'aasha labaad wuxuu ku dhahay gacalsada ma haysta wax caruur ah isaga wuxuu ku jawaabay ma gacalsada ma haysta wax caruur ah wuxuu sheegay wili labadooda inay sahlan wax caruur ah ninka gabadh iska ftan wuxuu ku dhahay wax ma adiga qarnaysa wuxuu ku dhaysaa waxba ka maqarnay waa sax ma haysan wax caruur ah qafiif hal mar silma filana buufinta wuxuu soo bixinaa jijinta ayada siinaysa Lili markaan godkida biyo uu soo galay indhaha taagaysa ma laabanta jijintan halku ka keen ninkan markaas ku dhahaysaa ana kan waa jijin aan maahan lacag markaas uu ku dhahay su'aashan kala daag jawaabta waxa helis waxa aad u qaali ah markaas ninka dhahay boobsi su'aasha taxad maxay tahay markaas isaga weydiinaya gacalsada wili ma ay gursay ku dhahay xarifku soo bood wuxuu ku dhahay of course ma wili ma aysan gursan ayada wuxuu sheegay labada mar dhow inay isguursan rabaan fiifo markuu buji buufinka saddexaad mar waxa soo baxaya faranti hal gabdhahan maxay qaan badan yihiin Lili waa banta xarifku soo qona faranti wuxuu ku dhahay midkaan ku gelin doona si diyaar Lili faranti way taqaana way fiirinaysa waxaan ku dhaysaa midkaan mid aqaan ayuu ekyahay wuxuu ku dhahay qafiifo su'aasha sax ah ugu jawaabteen wuxuu sheegay midkaan inuu yahay hadiyad ugu qaalisan ay heli doonaan fiirina wuxuu ku dhahay midkaan muxuu markuu soo qabtana waa waraaqadii markay sida uu si fiiriyaan waxa uu ku sii qaran hadana number markaas uu ku dhahay kan hadiyadaada ugu weyneetay wax numberkaan markaas ninka wuxuu ku dhahay wax numberkaan kadibna speakerka inoo fur dibna Lili waxay dheesahay waa waxa numberka ikaadi qafiifo markaan wuxuu sugu leeyahay inta kaliya laga soo wacay oo degdeg ayaan ku jira Lili waa banda waxay isleedahay numberkaan waa kuma markay wacdana oo speakerka ay furaysa isla markaa loo sheegay inuu yahay bukaata qafiifo uu rabo inuu ayada uu furo markaas qafiifo iska saaray koofidii wuxuu ku dhahay aniga waxa rabaa inaan kala tagno wuxuu ku dhahay kaliya waxa u baahan Soomaaliya inaan kala tagno hadda waan kala tageena markaas aan ku dhaysaa adiga maxad ku hadlaysaa kuma tahay markaas isagana wuxuu ku dhahay qaado dhamaan lacagta meeshaas ku jirta sidoo kale qofta wacaanay wuxuu ku dhahay adiga maalinta uma shaqeysid ee rag aad la fadhiisataa wadooyinka sidoo kale wuxuu sheegay gabadhiisa inuu isagu kaliya uu rabo inuu carro uu istaaga faranti uu siiyay uu yahay mid kala wada ka dhaxeeya yani isku guursanayay gacaliyada kale wuxuu dhahay adiga ma guursata Lili waxay ku dhaysaa Lili haba guursa carruurna way joon laakiin sukaniga ku sharxaya gabadh yarada mar soo carraysa wali beedo dhaysaa hooyo kadib Lili waxay bilaabeysaa gabadheeda inay u soo rooto dhahdana kaali hooyo kaali kadibna gabadha waxay bilaabeysaa inay soo carrto hooyada waxay gelaysaa abeed gadaashii Lili waxay dhaysaa waxaad rabtaa aniga naaga tagta gabadheeda fiifoon gabadhiisa ay gacanta ka qabsanay weena ka soo tagaan Lili ayadii saaxiibkeeda inuu nijabaya sababta wuxuu kala feegay family oo markaas waxay ku qeelanaysaa in adigna miyaad ka tagaysaa aniga markaas isagana wuxuu ku dhahay in badan ay waxtii sheegaysa been laakiin hadda kadib marwina beenkal ku sii noolaado Lilina sidaas ay ku weesay labadeeda gacan waa qisada xanuun badan ee ku dhacday qafiifo qayaanada xanuun badan ee u geystay Lili